kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka All Banaadir waxaan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbinaynaa oo aad daawan doontaan warbixin aan kaga hadli doono waxa loo yaqaan sarifka lacagaha qalaad ee online-ka ah taas oo waqtiyadii ugu dambeeyay ku soo badanaysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo ay jireen xarumo dhowr ah kuwaas oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho xarumahaas ayaana waxay ahaayeen xarumo qabta lacagaha ay leeyihiin qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo sheegay inay uga adeegayaan lacagaha dadku ay leeyihiin iyadoo siyaabo kala duwan looga hadlay waxa loo yaqaan sarifka online-ka ah dawladda Soomaaliya ayaana jirtay xilli ay soo saartay warqad ay ku hakinayso shirkadahaas laga furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka inkastoo ugu dambeyntii tallaabadaas la xaliyay bangiga dhexna lagu qanciyay in shirkadahan ay yihiin kuwa ka diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya taas oo keentay in shirkadahaas ay hore u sii wataan hawshii ay markii horeba hayeen balse muddooyinkan dambe waxaa soo ifbaxday in ay jireen shirkado ka mid ah kuwaas oo sida la sheegay lacag ay leeyihiin dad Soomaaliyeed lunsaday siyaabo kala duwan ayaa loogu faafiyay baraha bulshada warqado iyo qoraallo sheegaya in xarumaha qaar ay la baxsadeen lacag ay leeyihiin dad shacab ah iyadoo eedeymahaas oo dhan ay jireen balse tii ugu dambeysay ayaa ahayd markii shirkad lacag ay leeyihiin dad Soomaaliya gacanta ku haysay sidoo kalena dad la yaqaanay shirkadaas ay maamulka ahaayeen ay mar kaliya ku dhawaaqday in lacagihii ay dadkaas lahaayeen iyo kuwa iyadu ay leedahayba ay mar qura qasaareen waxaana taas ay noqotay mid dadku ay rumaysan waayaan muddo 24 saac ka badan ayaa aad loo hadalhayay waxaana maamulkii shirkadaas ay qoraallo ay soo dhigeen kadib ay soo raaciyeen muuqaaladaas oo ay kaga hadlayaan sida ay ku dhacday qasaaraha soo wajahay sida ay iyagu sheegeen intaas kadib maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu ku dhawaaqay in la joojiyay diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya sarifka online-ka ah warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa lagu hakiyay bixinta ruqsadaha ama diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya adeegga sarifka online-ka ee loo yaqaan Forex warqadan ayaa lagu xusay in tixraac ay u tahay warqad horey uga soo baxday xafiiska gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya taas oo looga hadlayay ruqsasiinta shirkadaha sarifka online-ka ee Forex iyadoo la ambaqaadayo warqadda tixraaca sare ku xusan agaasimaha waaxda khidmadda iyo adeegga ee dawladda hoose oo warqadan si toos ah ugu socoto waxaa lagu wargelinayaa in la joojiyo laga bilaabo 20 bisha Febraayo ruqsasiinta ama diiwaangelinta shirkadaha Forex ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish sidoo kale gudoomiyaha Cumar Finish ayaa agaasimaha amray inuu u soo gudbiyo liiska shirkadaha Forex-ka ee horey ay u diiwaangeliyeen maamulka gobolka Banaadir sida lagu yiri qoraalka si shirkadahaas go'aan looga gaaro amarkan ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ku socday shirkadaha ka shaqeeya sarifka online-ka loo yaqaan Forex ayaa wuxuu noqonayaa mid qalqal galiyay shirkado badan oo ku yaala Muqdisho waxaana jiray shirkado dhowr ah oo xilligan ku howlanaa in ay diiwaangeliyaan oo ay soo bandhigaan adeegyada ay bixiyaan balse gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa go'aanka uu ka gaaray wuxuu ku ekaa 20 bisha 2020 kaas oo qeexayay in aan mar dambe la diiwaangelin karin shirkad ku soo korortay shirkadaha ka jira Muqdisho kuwaas oo ka shaqeeya sarifka online-ka ah shirkado boqolaal kor u dhaafaya ayaa ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhammaan shirkadahaas waxay u shaqeeyaan si isku mid ah waxaana horay siyaabo kala duwan kaga hadlay culimada Soomaaliyeed iyadoona arrintaas lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan shirkada arrintaas ka soo horjeeday oo ku yaala Muqdisho fadhigooduna uu yahay caasimadda in adeegan shirkadahaas ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed uu yahay mid iyaga dhabarjab ku ah waxaana dadka arrimahaas lagu eedeynayay iyo curyaaminta Forex ka mid ahaa bangiyada ku yaala dalka kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan waxa lagu qalqalgelinayo shirkadahaas muddo badan oo ay taagneed shirkadahaas lacagaha ay bixiyaan maxalaalba mise waa xaraan siyaabo kala duwan ay kaga hadleen culimada Soomaaliyeed waxaana ugu dambeyntii culimada qaar ay sheegeen inay shirkadahaas lacagaha ay bixiyeen ay yihiin kuwa xalaal ah intaas kadibna markii caqabadaas halkaas laga soo gudbay bangiga dhexe ayaa soo gudbiyay warqad uu ku mamnuucayo shirkadahaas muddo ay qaadatay isjiid iyo wada hadal dheer ayaa maamulka bangiga loo sheegay in wasaaradda maaliyadda ay ka diiwaan gashan yihiin shirkadaha
waxaana tallaabadaas ay noqotay mid hore u sii dhaqaajiday shirkadaha forexiska ka shaqeeya, waxaana kuwo cusub ay ku dhiiradeen inay ku soo biiraan suuqa ka furan Muqdisho, kaas oo ah diiwaangelinta dadka kuwaa oo loogu adeegayo lacagahooda. Bulshada Soomaaliyeed waxay kuu sheegayaan markii aad si dhow u waraysato in lacagahooda ay u ooli jireen bangiyada dalka ku yaala, mana jirin wax iyaga howl ah oo loogu qaban jiray lacagtaas marka laga reebo in halkaas ay ahayd meel ay u taallo. Waxaana jirtay in bangiyada qaar ay lacagahaas u isticmaali jireen sida iyaga inay leeyihiin oo kale. Taas ayaana waxay keentay inay meesha ka baxdo kadib markii ay soo baxeen shirkadahan, kuwaas oo qofka lacagaha ay ka qaadaan dib ugu celinaya. Waa haddii uu u baahdo, inta ka horreysana faa'iidadiisa ayuu qaadanayaa marka bil walba la shaqeeyo, iyadoo tirsiga maalmuhuna ay yihiin 35 maalin kadib. Tallaabadaas waxay ahayd mid dad badan ay soo dhoweeyeen, ayna u arkiyeen mid guul ah, maadaama bangiyadu horey u ahaayeen kuwa lacagahooda iska haysan jiray, xitaa boqolkiiba hal wax dhanna aysan ka siin jirin sanadkii xitaa. Bangiyada ayaana waxay u arkeen shirkadahan forexiska kuwa iyaga curyaaminaya, maadaama bangiyo dhowr ah oo ku yaala Muqdisho lacagihii ay hayn jireen dadkii ay kala baxeen kol hore, kuwaas oo ku maalgashaday shirkadaha forexiska, kuwaas oo ku maalgashaday shirkadaha ka shaqeeya suuqa sarifka online-ka, maadaama halkaas ay tahay meesha keliya ay u arkayaan inay faa'iido ka helayaan. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho oo ah magaalo madaxdii dalka iyo gobollada qaar ee dalka ayaa waxay si isku mid ah uga hadleen arrintaas, waxayna dhammaantood ka midaysan yihiin in shirkadahan ay yihiin kuwa iyaga u danaynaya, maadaama qofka lacagihiisa loogu shaqaynayo, shirkaduhuna ay yihiin kuwa aamin ah. Balse tallaabada xilligan soo baxday ayaa waxay tahay mid kale oo caqabad ku noqonaysa shirkadaha ka shaqeeya sarifka online-ka, iyadoo xilligan ay soo baxeen shirkado sheegay inay ka shaqaynayaan waxa loo yaqaano sarifka online-ka, balse lacagihii dad badan ay lahaayeen ayna ku aamineen, maadaama dadka hoggaanka ka ahaa shirkadahaas ay ahaayeen kuwa iyaga kol hore dadku ay barteen inay ku dhawaaqeen in dhammaan lacagihii ay khasaareen. Waxaana taas ay keentay isweydiin badan iyo su'aalo ka soo baxay, maadaama shirkadda soo bandhigtay inay khasaartay ay tahay shirkad aanan shaqayn wax ku dhow xitaa 20 maalin. Taasna ay tahay midda keliya ee su'aalaha ugu badan dhalisay, waxaana dadka qaar ay ku tilmaameen in tallaabadan ay tahay mid loogu dan leeyahay laguna curyaaminayo shirkadahaas ka howlgala sarifka. Waa caqabad kale oo iyana ay la kulmayaan markaan shirkadaha ka shaqeeya sarifka online-ka, maadaama dad iyagoo kale iska soo dhigay sheegayna inay u shaqaynayaan sida shirkadahaas kale ay u shaqeeyaan, inay sheegeen in lacag dad badan ay lahaayeen ay ku luntay gacantooda. Waxaana markii aad arrintaas eegto halkaas kaaga soo baxaya inay tahay siyaasad kale oo shirkadahaas la doonayo in mar kale lagu hakiyo, maadaama ay ka soo gudbeen caqabadihii ahaa dhinaca dowladda iyo sidoo kale midii ahayd lacagaha ay bixiyaan shirkadahaas waa xaaraan, kuwaas oo culimmadu ay ka hadleen ayna sheegeen in shirkadahaas lacagaha haddii ay u maraan habka ay ku shaqaynayaan xilligan ay tahay mid xalaal u ah. Lama oga halka ay ku dambayn doonto tallaabada guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ku mamnuucayay shirkadaha ku soo biiri lahaa suuqa sarifka online-ka xilligan la joogo. Waa shirkado marka aad eegto si weyn u hadal hayaan bulshada Soomaaliyeed, dadkuna xilligan ay yihiin kuwa ay aaminsan yihiin, maadaama halkaas ay ka helayaan lacago looga soo saarayo lacagahoodii oo lagu shaqeeyay. Waana dadka keliya ee xilligan u taagan in bulshada Soomaaliyeed ay lacagahooda ugu shaqeeyaan, iyadoo qofkuna uu helayo damaanad, taas oo ah in lacagtiisa haddii ay lunto la siinayo. Su'aasha isweydiinta mudan ee kale ayaa waxay tahay, guddoomiyaha gobolka Banaadir waa uu joojiyey shirkadihii cusbaa ee ku soo biiri lahaa suuqan, balse ma la joojin doonaa shirkadihii hore u diiwaan geliyey maamulka gobolka Banaadir, kuwaas oo bixiyey dhammaan lacagihii laga doonayay ee isdiiwaangelinta ahaa? Haddii taas ay dhacdana, muxuu maamulka gobolka Banaadir u cuskanayaa joojinta shirkadahaas kuwaas oo bixiyey canshuurtii maamulka gobolka Banaadir uu ku lahaa? Waxaase laga warsugayo waa tallaabada uu qaado maamulka gobolka Banaadir, taas oo u qaadayo shirkadihii hore uu diiwaan geliyey, kuwaas oo guddoomiyuhu uu codsaday in la hor keeno liiska ay ku xusan yihiin, taas oo dhalisay shakiga ah miyuu joojin doonaa kuwa hore u shaqayn jiray, mise damaanad ayaa lagu xujeyn doonaa shirkadahan oo horeyba ay u keeneen? Daawadayaal, intaasay ku dhan tahay warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay shirkadaha ka shaqeeya sarifka lacagaha qalaad
kuwaas oo ku shaqeeya habka online-ka ah muddadii ugu dambeydana muqdisho aad ugu soo badanayay. Inkastoo xilligan maamulka gobolka banaadir uu ku dhawaaqay in gebi ahaanba la joojiyey shirkadaha cusub ee kusoo biirayay sarifkaas online-ka ah. waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warbixinteena iyo guud ahaanba warbixinada ka baxa janalkeena. haddii ay dhacdo in maamulka gobolka banaadir uu gebi ahaanba joojiyo shirkado hore u shaqayn jiray kana shaqayn jiray sarifka online-ka ah ee lacagaha qalaad, ayaa waxay noqon doonaan dad badan oo ku tiirsaneyd noloshooda waqtigaana wax ka helin jiray maalgashigii ay sameeyeen in ay noqoto tallaabo dhibaato u keenta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool caasimadda dalka, kuwaas oo caqabado badan xilligan ay hortaagnaayeen, iyadoo maamulka gobolka banaadir uu marnaba damaanad qaadin karin nolosha dadkaas. waxaase dadku ay noqon doonaan kuwa maamulka gobolka banaadir waxayna dadku noqon doonaan kuwa maamulka gobolka banaadir oo hor istaagay ilaahay dhaqaalaha ay ka heli jireen, iyadoo maamulka gobolka banaadirna looga sugi doono xilligaas in uu bixiyo dhammaan lacagaha dadkaas ay ku tiirsan yihiin. haddii taa la waayana wuxuu noqon doonaa maamulka gobolka banaadir mid dantiisa fiiriya balse aanan fiirin danta shacabka Soomaaliyeed ee danyarta ee ku nool Muqdisho, iyadoo si gaar ah loogu eedeynayay in maamulka gobolka banaadir ay dhowr mar isku dayeen inay iyadoo maamulka gobolka banaadir hore loogu eedeeyey in isku dayo badan ay usoo gudbiyeen oo lagu mamnuucayo bangiyada dalka ka jira, kuwaas oo ah caqabada koowaad ee hortaagan shirkadaha forex. balse shirkadahan ayaa ah kuwa faa'iidada ay helaan kuwa faa'iidada ay shaqeeyaan ay u qaybsan tahay iyaga iyo dadkii maalgashaday, waana shirkado iyagu aanan si gaar ah ugu danaysan lacagahaas, balse ay jirto isku danaysi ah dadka ay u shaqaynayaan iyo iyaga, balse bangiyada ayaa ah kuwa iyagu danaystayaal ah.